waan idin salaamay khiyaarta sharafta leh ku xiran channelka runta u kaalay runtii waxaan idinka raali gelinayaa inaan waqti hore isu keen dambeysay oo waqti aad u fog ahayd markii igu dambeysay in video soo dhigo channelka marka raali gelin baan ka bixinayaa asxaabtii tirada badneed ee subscribe ka saartay sababaha aan intaas oo dhan uga maqnaan waxay ahayd inaan upgrade ku sameeyo channelka oo barnaamijyo tayo leh aan soo daayay haddii la yidhaaho marka waxaan rumaysanahay inaad arki doontaan isbeddelka iyo horumarka aan ka sameeyey xagga magaranaysaa videoga marka soo laabta ayaan ilaahay mar labaad oo soo dhawaada oo kusoo dhawaada channelka runta u kaalay oon mar labaad boardka ka jafay casharo kuwii hore ka taya fiican iyo background iyo setup kuwii hore ka taya fiican iyo muuqaallo kuwii hore ka taya fiican ayaad heli doontaan waxaan maanta idin ogeysiinayaa oo idinku soo dhaweynayaa in casharadii ugu horreeyay aan bilaabay casharada waxay ku saabsan yihiin isbarbardhigga islaamka iyo masiixiyadda hadday noqoto caqiidada ilaahay waa kuma ma garanaysaa kitaabka bibleka iyo kitaabka qur-aanka ah siirada ciise masiix iyo siirada nebi maxamed kitaabka bibleka miyaa la bedelay miyaa la taxriifiyey mise lama taxriifinin arrintaa muxuu ka qabaa qur-aanku bibleka muxuu ka qabaa axaadiistu maxay ka qabaan sunnadu maxay ka qabtaa cashiro marka aad u tayo badan oo isbarbardhig ku saabsan isbarbardhig ah oo ku saabsan islaamka iyo masiixiyadda ayaynu baran doonaa waxaanan aad u rajaynaya inaad aad uga heli doontaan oo aad idin xiisa gelin doonaan gaar ahaan dhalinta jecel inay wax ka ogaadaan ma garanaysaa dadka kale waxay aaminsan yihiin waxa weeyaan inamaa yucrafu alumuuru bitadaad bay carabtu dhahaan wax walba waxaa lagu ogaadaa waxa ka soo horjeeda xanuunka waxaa lagu ogaadaa caafimaadka waxaa lagu ogaadaa xanuunka barwaaqada waxaa lagu ogaadaa abaarta ma garanaysaa maalinta iyo habeenka waa la isku ogaadaa marka wax walba waxa ka soo horjeeda ayaa la barbardhigaa marka waxa weeyaan waxaynu isbarbardhigaynaa haddii la yidhaaho islaamka iyo masiixiyadda ama alislaam iyo christianityga labadaba ayaynu isbarbardhigaynaa waxa weeyaan waxaa la yidhi cilmi waxaad isweydiin kartaan muxuu ugu xishay topica apologetica ama isbarbardhigga diimaha masiixiyadda iyo islaamka iyo judaismka muxuu ugu xishay baad isweydiin kartaan waxaan ugu xishay waxa weeyaan cilmiga in la barto waa muhiim colaad badan baa ka dhalata diimaha oon ku salaysnayn aqoon ma garanaysaa ku salaysan ma garanaysaa nacayb iyo dagaallo waa dhacay marka waxa weeyaan diimuhu nabad bay dadka ugu yeedhaan iyo wada noolaansho uguma yeedhaan dadku inay islaayaan oo iskala qaybqaybiyaan marka waxa weeyaan aqoon bay ayaad ka helaysaan gaar ahaan dhalinta soomaaliyeed ee muslimka ah dadka soomaaliyeed ee muslimka ah aqoon ayaad ka helaysaan waxa weeyaan waxaa jira odhaah qiimo badan oo odhanaysa qofka adiga kaa soo horjeeda guushu waxa weeyaan afar meeloodoo saddex guushu waxa weeyaan qofka kaa soo horjeeda waxa uu aaminsan yahay inaad ogaato marka masiixiyiintu waxay aaminsan yihiin inaad ogaato waa muhiim aad bay muhiim u tahay adiga muslimka ay muhiim ku tahay sababtoo ah lama doodi kartid ma wacdiyi kartid ma qancin kartid haddaadan qofka aaminsanayn haddaadan qofka aqoonin waxa uu aaminsan yahay marka aqoon isbarbardhigga marka diimuhu wuxuu mar walbaba kaa caawinayaa inaad aragti saxa ka qaadato dadka kaa duwan ee diinta kala haysta waxaanu ka hadli doonaa oo kale barnaamijyo kale oo tiro badan oo ku saabsan laakiin maanta waxaan idinku soo dhaweynayaa cashirka koobaad wuxuu ku saabsan yahay ilaahay waa kuma kitaabka bibleka ilaahay markuu nabi muuse u waxyooday oo towreed ku soo dejiyey siduu isugu sheegay muxuu isku sheegay magacuu isugu yeedhay ayaynu baran doonaa marka cashirkaas ayaan idinku soo dhaweynayaa wuxuu noqon doonaa cashirka ugu horreeya ee ka bixi doona channelka runta u kaalay dib u dhalashadiisa cusub ama dib u qaabayntiisa cusub marka waxaan leeyahay mar labaad soo dhawaada